Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada barnaamijkeenan waxaan kusoo qaadan doonaa xiriirka dhexeeya daacadnimada iyo guusha balse intaan muuqaalka u gudagelin hal su-aal ayaan ku weydiinayaa daawade waa maxay xiriirka dhexeeya daacadnimada iyo guusha muuqaalka isku day inaad istaajisid kadibna su-aashan aad ka jawaabtid wax macquula inaad uga jawaabtid sida ugu saxsan uguna macquulsan muuqaalkan waxaan kusoo qaadan doonaa 5 qodob oo ka mid a qodobada nolosha ugu muhiimsan nambar koowaad waa waxbarashada qof walba oo aadanaha ka mid a wuxuu jecel yahay inuu noqdo qof waxbartay saa darteed dad badan ayaa waxay koraan tareenka waxbarashada kuwa oo ku dadaala inay noqdaan kuwa ku guuleystay safarkaas nolosha ee dheer ay galayaan maxaa yeelay waxay doonayaan inay noqdaan dad dunida magac ku leh ama hanti ka tacbaday ama nolosha aadanaha si kale wax ugu soo kordhiya dad badan ayaa ka hara tareenkaas oo basteejada koowaad u istaagaba uga hara maxaa yeelay ma ahan dad u daacada waxbarashadooda una diyaarsan inay noqdaan dad waxbarashadooda ka run sheega haddii ay tahay waxbarashada dugsiga qur-aanka ama macaahida kale noocyadooda kala duwanba ama jaamacadaha waxaad u baahan tahay inaad noqotid qof u daacada waxbarashadiisa sirta guusha ee waxbarashada waa daacadnimada iyo inaad mar walba ku dadaashid inaad waxbarashadaada ka run sheegtid noqotidna qof waxbarashadiisa si dhaba diiradda u saara lambar 2 shaqada qof walba wuxuu jecel yahay inuu xoolo tacbado middaa oo keenaysa in ibniaadamku tartan u galo sidii wax u tacban lahaa qof walbana wuxuu jecel yahay inuu wax tacbado maal helo noqdo qof meel degan qof asiga wax haysto qof aan ibniaadamka u baahanin balse ma ogtahay qof walba wuxuu aad iyo aad u daneynayaa inuu lacag helo balse sirta ka dambeysa in dadka qaar ay ku guuleystaan qaybta ganacsiga horumar weyn ka gaaran ay tahay inay daacad u noqdeen waxyaabaha ay ka shaqeynayeen middaa oo keenta inay noqdaan dad ku guuleysta suuqa shaqada qofka hadduu mar suuqa shaqada ku guuleystana waxay u badantay inuu tacbado xoolo badan ama maal badan sidaad u taqaanid adigaba nambar 3 jacaylka jacaylku waa noocyo badan yahay jacaylku aad iyo aad buu u qaybo badan yahay qayb waa qayb dhanka waalidka dhanka walaalaha dhanka qofka aad doonaysa inaad nolosha la wadaagtid balse qofka marnaba aan daacad ahayn macquul maahan inuu ku guuleysto helista jacaylka ama waalidka ama walaalaha ama bulshada ama qofta uu doonayo ama qofka ay doonayso inuu nolosha la wadaago qof walba sida uu doonayo inuu helo waxaa ka xigta oo kaliya inuu noqdo qof daacada sidaa darteed sirta ka dambeysa inaad hanatid qalbiyada dad badan waxay tahay daacadnimada qofku mar walba uu daacad noqdo waxaa weeyaan mar walba uu ku guuleysan doono nolosha qaybo badan oo ka mid a nambar 4 dhaqanka wanaagsan dadka dhaqankoodu wanaagsan yahay waa dadka daacadda ah 100%. dadkaasi waxay helaan in badan oo ka mid ah waxyaabaha ay doonayaan oo nolosha ah maxaa yeelay waa dad ay ka go-an tahay si toosan inay dadka ula macaamilaan luuqluuq iyo iska daba wareegna aan marnaba aqoonin sidaa darteed waxaad u baahantahay inaad noqotid qof wanaagsan nambar 5 ku guuleysashada tartanka nolosha tartamada nolosha aad iyo aad buu u badan yahay qof walba tartan ayuu ku jiraa qof wuxuu ku jiraa tartanka kubadda cagta qof wuxuu ku jiraa tartanka waxbarashada qof wuxuu ku jiraa tartanka siyaasadda qof walba tartan ayuu ku jiraa qof wuxuu ku jiraa tartanka suuqa ganacsiga qof walba tartan ayuu qof kale kula jiraa wuxuu jecel yahay qof walba inuu tartankiisa ku guuleysto saa darteed waxaad u baahantahay inaad noqotid qof tartanka uu galayo daacad uu ka yahay qof in badan waqti ku baxsha ama dadaal ku baxsha ama juhdi ku baxsha aad u taqaanid sidii uu u noqon lahaa tartankaas uu galayo qof u diyaarsan qofku markuu yahay qof tartanka u diyaarsan wax badan oo 100% ah ayaa u fududaada haddaba sidee aad doonaysid inaad ku guuleysid tartan ama aad doonaysid inaad ku guuleysid waxbarashada ama aad doonaysid inaad ku guuleysid shaqada ama aad doonaysid inaad ku guuleysatid jacaylka noocoo rabo ha noqdee ama aad doonaysid inaad ku guuleysatid inaad noqotid qof wanaagsan dadka agtooda iyo alla agtiisaba waxaad u baahantahay inaad noqotid qof daacada sirta guusha ee nolosha aadanaha dhan u wada baahan yihiin waa daacadnimada nolosha nooc walbay tahay waxay u baahan tahay daacadnimo sirta nolosha waa sidan kuu sheegay waa daacadnimo haddii aad doonaysid inaad guuleysatid waxaan u baahan tahay inaad noqotid daacad waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad wax uun ka faa'iiday fadlan ka mid noqo walaalahan halkan ku midownay
هذا وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.